kusoo dhawaada muuqaal cusub. fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar channelkan. waxaan eegi doonaa sheekooyin xiiso badan dhanka ciyaaraha. 10 maalin ugu mishaaraadka badan Premier League, kulanka Arsenal caawa ciyaari doonto warbixino kale. horyaalka wadanka England Premier League waxaa ciyaarihiisa xamaasadda la sii qurxiyay tababarayaasha ugu wanaagsan dunida waqtigan oo dhammaantood halkan jooga. 10 maalin ugu mishaaraadka badan Premier League ayaan eegi doonaa. Pep Guardiola 2016 City kala wareegay Manuel Pellegrini iyo wuxuu ku guuleystay 2 horyaal oo xiriir ah iyo koobab maxalli ah oo markii la eego oo laga furfurin. laakiin Jose ku soo xifaaltami jireen Spain ayaa isaguna dib ugu soo laabtay England sanad kadib markii laga diray United-ka. wuxuu markan hogaaminayaa Tottenham oo bishii hore ceyrisay Mauricio Pochettino. Tobar Klopp oo shaqo aan caadi ahayn sanadihii ugu dambeeyay ka qabtay Liverpool ayaa wacdara ka dhigay xilli ciyaareedkan. wuxuu hoggaanka u hayaa 8 dhibcood xilli kala barkii ka harsan yihiin 3 kulan. saddexda tababar ee hirdan adag ugu jira waxaa ku soo biiray Brendan Rodgers oo markii uu ka tagay Liverpool u dhaqaaqay Scotland oo koob badan u soo qaaday Celtic, laakiin hadda wata Leicester markii la eego oo la qaban lahayahay horyaalkan. markii la eego Premier League ximaasadiisu waa mid aad u badan. hadda waxaan eegi doonaa macallimiinta ugu mishaaraadka badan. 10 maalin ee Premier League ugu mishaaraadka badan Pep ayaa toddobaadkii qaatay lacagna 385,000 taw markii sanad loo bedelo noqonaysa 20 milyan. Jose laba toddobaad ka hor noqday tababaraha Tottenham ayaa usbuucii loo qoray inuu qaatay 288,000 ka oo ku jira kaalinta labaad. waxay lacagtani noqonaysaa marka sanad ahaan loo bedelo 15 milyan. kaalinta saddexaad waxaa soo galay Brendan Rodgers oo qaatay 192,000 sanad ahaan loo bedelo 10 milyan. Klopp Solskjaer ayaa kaalinta afraad ku wada jira ayaa waxay toddobaadkii helaan mishaar 145,000 sanadkiina noqonaysa 7.5 milyan. Manuel Pellegrini ayaa 7 milyan sanadkii hela, halka Rafael Hazel oo hogaamiya Southampton uu helo 6 milyan. Lampardka Chelsea ayaa sanadkii hela 5.5 milyan. Eddie Howe ayaa hela 4 milyan oo hogaamiya Bournemouth, halka Saint-Germain 3.5 milyan uu helo. 10 maalin ee ugu sareysa markii la eego horyaalka Premier League dhanka iyo mushaaraadka. dhanka kale haddaan anba qaadno iyadoo kulan xiiso badan caawa la ciyaari doono. kooxda Gunners ayaa iyaduna dhankeeda ciyaareysa kulan ka tirsan Premier League waliba kulamada ugu dambeeya horyaalkan. Arsenal 9 kulan wax guul ah maysan gaarin, waa dhibaato iyo murugo kooxda haysata. waxay ku jiraan 40 sano meeshii ugu hooseysay kooxdan maadaama 9 kulan xiriir ah wax guuleysan gaarin. taa beddelkeeda waxaa halkan jooga hogaamiye ku meel gaar ah kuma qanacsanan taageerayaasha. weli kooxdu waxay raadinaysaa macallin wanaagsan ka oo la dhihi karo inuu bedelo hogaamiyaha xilligan Frank Lampard. caawa 5 saac ayaa kulanka la daawan doonaa. Arsenal ayaa qiimeynaysa xaaladda dhaawac Hector Bellerin kadib markii uu kasoo kabtay dhaawaca kasoo gaaray kulankii wajahan Brighton. caawa 11 ayaa kulankan la daawan doonaa. waa mid kamid ah kulamada ay ugu xiisaha badan markii la eego dhanka iyo horyaalka Premier League, waana kulanka ugu dambeeyay isbuuca la ciyaaro. dhanka kale hogaamiyaha Inter Milan Antonio Conte ayaa ku qasbay maamulka kooxda inay soo qaataan daafaca dambeedka bidixii kooxda Chelsea ninka lagu magacaabo Marcos Alonso ka oo kamid ah daafacada ugu wanaagsan. maahan dooqa koowaad ee Frank Lampard. Conte ayaa xiiseynaya waqtigan in kooxda loo keeno xidigan. dhanka kale Valverde ayaa si weyn u ammaanay Lionel Messi kadib 3 ley uu dhaliyay kulanka horyaalka isbuucan. laacibka ugu wanaagsan 6 jeer Ballon d'Or ayaa noqday laacib markii la eego waqtigan shabaqa cidna aysan ka celin karin. dhanka kale Pep Guardiola ayaa ka niyad jabsan xaaladda kooxdiisa City kadib guuldaradii kasoo gaartay kooxda United isbuucan horyaalka xiisaha Premier League. City ayaa 14 dhibcood ka hooseysa kooxda markii la kaalinta koowaad fadhisay Liverpool. taa waqtigan cadaadis yar kala kulmaysa kooxda dabacooyinka Leicester taa markii la eego booska labaad soo ciriirsatay kana saramartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City markii la eego dhibcaha ee waqtigan heystaan horyaalka Premier League. Ryan Joseph Giggs ayaa kashifay sirta caawisa United inay garaacaan nadiga City. United ayaa iska caawisay dhammaan 6 kooxood ugu sareysa Premier League xilciyaareedkan, waxaase guuldarooyinka la kulanta Palace, Bournemouth, West Ham, Newcastle bilowgii hore ciyaareedka, laakiin kalsoonida ayaa dib ugu soo laabatay. tababaraha Tottenham Jose Mourinho ayaa usbuucii hore sheegay United ay u sahlantahay in kooxaha weyn iska celiso, wuxuuna markhaati ka furay Giggs oo ku waafaqay kooxdiisa hore dareen gaar ah inay siiso kulamada waaweyn. waxay feejignaan ka sameeyaan daafac iyo markay kubadda guuleystaan way fiican tahay inaad hubiso in booskaagu hore u socdo.
daabashadan way fiican tahay. Ciyaartooygu wuxuu ku duulayaa Anthony Martial dhibaato weyn ku abuuray City. Dhammaantiin waan ognahay rikoorka United kooxaha waaweyn markii kooxaha waaweyn culays noo soo saaraan waxay ku qaadanaysaa weerar degdeg counter attack. Giggs wuxuu tilmaamay United ay u harsan tahay inay baabi'iso kooxaha gaar ahaan markii uu soo laabato Pogba oo dhaawac waqti qaad ku maqan. Talaabada labaad waa inay burburiyaan kooxaha waana sababta aan ugu baahanahay in Pogba soo laabto waa mid kaliya albaabka furaysa kooxda ku soo celin kara in si fiican u joogteyso qaab ciyaareedka. United waxay Khamiista Old Trafford ku martigelin doontaa Alkmaar kulanka ugu dambeeya Group L ee tartanka Europa League laakiin waxay u baahan tahay guul ama barbardhac. Ugu dambeyntiina hogaamiyihii hore Bayern Munich ninka lagu magacaabo Niko Kovac ayaa caawa daawan doona kulanka Arsenal ka oo daneynaya inuu shaqo ka qabto kooxda Arsenal waqtigan uu jecel yahay inuu noqdo hogaamiyaha kooxda Gunners. Niko Kovac ayaa laga buriyay shaqada kadib guuldarro kala kulmay kooxda Frankfurt. kulan ka tirsanaa Bundesliga Jarmalka ayaa daneynaya in kooxda macallin la'aanta haysa xaalad xun ku jirta Arsenal waqtigan badbaadin u sameeyo xilli maamulka Arsenal weli ay ka hadleen sheekada hogaamiyahan daneynaya markii la eego Arsenal. sheekooyinka ah kuwii ugu waaweynaa ciyaaraha Arsenal caawa ciyaaraysa ayaana ah kulanka aadka loo wada sugayo. haddaad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe saar waxaa muuqaalo kale ka daawan doontaan halkan anigoo heer ah warbixino kale oo xiiso badan idiin soo gudbin doonaa sidaa iyo nabadgelyo.